halkan aan ku suganahay waa tuulada isku raranka ah Soweto waxay qiyaastii 30 kiiloomitir dhacda duleedka magaalada Johannesburg maalmihii la soo dhaafay waxa laga soo tawinayay dhibaato aad u weyn kadib markii dhalinyaro Soomaaliyeed iyo dad u dhashay dalka Koonfur Afrika ay dhibaato soo dhaxmartay waxa la boobay mid kamid ah dukaamada ganacsatada Soomaaliyeed oo ku yaal agagaarka xaafadda White City ee aan yiraahdo ee Soweto run ahaantii waxa goobta ku sugan hadda aan ku suganahay waa Makoro Police Station waxa ku sugan gudoomiyaha jaaliyadda Maxamed Cumar Warsame Talyaani oo juhdi iyo dadaal badan geliyay sidii uu xalin lahaa waxa sidoo kale jooga gudoomiyihii hore ee jaaliyadda mudane Caamir Sheekh oo asagana arintani run ahaantii gacan weyn ka geystay waxa sidoo kale ku sugan qaar kamid ah ganacsatadii deganaa ee ka ganacsanayay xaafadda Soweto muddo ku dhawaad 10 sano iyo ka badan run ahaantii halkan dukaamadooda ka furnaayeen dhibaato xooggan ayaa soo food saartay waxayna ii sheegeen sida tan joognaa waa Makoro Police Station oo 4 bari iyo 5 bari u dambeysay aan ku soo noqonay meeshan habeenkiina ilaa maalintii iyo saacad walbana waxaan u joognaa meeshan waxay tahay shaqaaqadii yareed ee ka dhacday Soweto gaar ahaan xaafadda White City oo aan bariyahanba kala socoteen media iyo dhibaatadii ka jirtay kadib markii ay dhacday isfahan darro customkii iyo wiil ka shaqeynaya dukaanka isku gacan qaadeen sida ay sheegayaan dadka deegaanka xabad lagu dhuftay wiil kamid ah dadka deegaanka ama u dhashay South Africana kadibna ay shaqaaqadii dadkii ay ka falceliyeen dukaamo badan ay weerar ku qaadeen dukaankii dhibka ka dhacay ayaa la boobay oo gacanta ka baxay waa la isku dayay ganacsatada inay badbaadiso hantidaas waxay noqotay wax burburay iyo wax la qaatay ayuu noqday dukaankaas laakiin ma jiro dukaan Soweto ku yaala oo la qaatay ama la boobay ma jiro guud ahaanba waxyaalaha media la wareejinayna waa boosiyo hore meeting koowaad oo la qaadan community-ga Soweto waxay noo sheegeen in ay diyaar u yihiin inay helaan ninka dambiilaha ahaa dukaamadana la xiro wax boobna nooma sheegin ilaa maantana tii ay ku taagan yihiin laakiin qofkii raba inuu dukaankiisa rarto ama antidiisa oo la baxo inuu si nabadgelyo ah oo la bixaayo ayagana ay u rarayaan ballanta ayayna ku taagan yihiin waxa mahad celin mudan Allah subhanahu wa ta'ala kadib ciidanka booliiska oo aad iyo aad oo la shaqeynayo dadka ganacsatada ah iyo dadka deegaanka ah si u kala nabadgel lahaayeen 4 bari u dambeysana waxaan ku mashquulsanaa xalinta arintan maanta oo ugu dambeeyay shirka aan ka soo baxnay oo kala soo timid waxaan shirka ku invite gareynaa maanta African Diaspora hoggaankeeda gudoomiye ku xigeenka sidoo kale gudoomiyaha dadka walaalaha Etoobiyaanka ayaan ku casuunay shirki maanta waxaana marti ku ahaa guud ahaan dadkii aan bariyahan la shireynay oo community-ga ka socday iyo security-ga safety-ga iyo station commander-ha iyo ciidamada milishiyada iyo ciidamada dambiyada waxa uu heliyay kulanka maanta marka MMC-ga ama wasiirka gobolka amniga ayaa shirka nagu weheliyay maanta shirkan waxaan isku afgaranay in xaaladda la dejiyo dadka community-ga war aan ku celino dambiilihiina aan raadino ayaan isku sheegnay ilaa haddana raadinteedii hooshana ayaan ku jirnaa xaaladda Soweto guud ahaan way degan tahay laakiin way jiraan shakhsiyaad ka faa'iideysanaya culayska jiro inay hanti dad ku boobaan ama dambiyo hor leh ay abuuraan waa jiraan dadkuna ma sinna ma jiro wax dukaamo oo la boobay markii laga reebo dukaanka dhacdada ka dhacday way dhacday arintan oo kale sidaan si lamid ayaan u xakameyn jirnay haddana xakameynteedii ayaan ku jirnaa lamaha amniga marka la fadhiisanay in xaaladda booliis extra ayaa la keenay ciidan dheeraad ayaa meesha lagu soo ziyaadiyay si loo xakameeyo hadii aan rabshado soo ziyaado rajada aan qabno 80% meel fiican ay ku socotaa oo halisteedii iyo riskigeedu waxaan u mahad celinayaa wariye Karash iyo TV-ga Shabeelle oo mar walba u dhagduleela jaaliyada Soomaaliya Koonfur Afrika aad iyo aad ay u mahadsiin hornaweedana guud ee TV-ga Shabeelle iyo shaqaalaheeda waa salaad aadan kulan sida wuxuu dhaceen Karash ku sheego meeshan Soweto gaar ahaan White City baa waxa ka dhacay Friday-dii wiilal Soomaaliyeed oo dukaan ka shaqeynaya waxa ku dhacay in maaragtay ay wiilal xooga la dhihi karo way cabsanayeen oo ciyaalka xaafadda ah bay is afdhaafeen meeshiina dagaal yar baa ka dhacay dagaalkiina wuxuu sababa violence badan oo maaragtay xaafadda oo dhana walow anta dadaal badan muujinay hal dukaan waa la boobay haddaan gadaal u laabto hal dukaan la boobay dukaamadii kale intii kale waa la raray sidii laga rabana xaaladdu wali ma noqon dadaal badan oo bixinay marka saas baa wuxuu dhacay walaalkay
Crash iyo TV-ga Shabeelle waxa uu sheegayaa xogaa shaqaaqa yar ayaa dhacday carab iyo ilka isugu dhow waa isqaniinaan customka iyo wiilashii dukaanka ka shaqeynaya ayaa isdagaalay kadib dagaalkii ayaa weynaaday gacan ka hadalkii waa u batay kadib waxay tagtay in dukaankii la boobo markaan soo gaarnay carrigii aan ku soo baxnay waa weydiinaysaa wax u dhaceen dadkii South Africaanka waxay ku andacoonayaan waana la xabadeeyo wiilaana laga dhaawacay wiilasha dukaanka joogana waxay leeyihiin wax aan naga xabadeynan lama arko wax aan dhaawacanan lama arkay waxa waayay dadka marmarsiyo ee nagu boowaan unbay raadinayeen marka halkaas ay maraysaa dukaankii ee shaqaaqada ka dhacday waa la boobay inta badan wixii soo harana waxay noqdeen wax baabay oo damage u baabay frijada waa la baabiyay waa la jabiyay shalfisadii waxaa la dhihi karaa dukaankaas almost waa u burburay cabdirashiid xuseen karaash raadiyaha iyo TV-ga Shabeelle Soweto magaalada Johannesburg